kadib wacyigelino iyo dadaalo dheeraad ah oo xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalidu uu ka wada dhammaanba gobolada maamul magaalooyinka iyo degmooyinka deegaanka ayaa goobaha uu ka wada waxaa ka mid ah gobolka Jarar maamulka magaalada Dhagaxbuur iyo degmada Dhagaxbuur iyagoo goobtaasi la isla qaatay in la sameeyo gudiyo wacyigelineed oo yeeshaan gobolka Jarar maamulka magaalada Dhagaxbuur iyo degmada Dhagaxbuur fulinta casharadii goobta ee xafiiska caafimaadka ayaa waxaa markiiba bilaabay kabareedka maamulka magaalada Dhagaxbuur oo ay ka sameeyeen meelaha magaalada laga soo galo. dhankiisa maayarka maamulka magaalada Dhagaxbuur ayaa kormeeray goobaha ay shaqadu ka socoto sida goobta tijaabada caafimaadka iyo sidoo kale goobta loogu talagalay in lagu karantiilo qofkii looga shakiyo xanuunkan. dhankooda kabaneedka maamulka magaalada oo wacyigelin iyo tijaabo caafimaad ku jira ayaan kula kulanay goobaha ay ka sameynayaan tijaabada caafimaadka ee xanuunka coronavirus waxaana hadaladoodii ka mid ahaa maanta bartan waxaan taaganahay waa keelayada ama kantaroolada laga soo galo magaalada kaas oo aan ka wadnay hawlo shaqo oo la xiriira muxuu ahaay sidii loo screen gareyn lahaa ama muxuu ahaay loo baari lahaa cudurka coronavirus muxuu ahaa caabuqaas oo lagu baarayo muxuu ahaay temperature-ka muxuu ahaa xumada ama thermoscan muxuu ahaa qalabka la yiraahdo ee xumada lagu baaro marka hawlahaas laga waday sidoo kale waxaa jirta iyaduna goobtii farxalka oo lagu farxalayay oo dhammaan rakaabka magaalada soo galay ay farxalayaan taasna waxay sameynaysaa wacyigelin kow marka labada shaqo oo keelaaga laga wado iyo hawlihii kale ee wacyigelinta oo magaalada ka socda guud ahaanba ayaa waxa guud ahaan baanu ka wadnaa sidii bulshada loogu sheegi lahaa cudurkan waxaan haygan ugu jiraa sidii aan dadka bulshada magaalada uga wacyigelin lahayn cudurkan caabuqa isla markaana dhibaato badan ku haya beesha caalamka isla markaana dalalka bariga Afrika soo gaaray gaar ahaan khaasatan gobolkan deegaankan dalka ku nool Itoobiya gaar ahaan deegaanada deriskeena sida sababa iyo dirraba marka cudurkan ma laha daawo talaal ma laha kaliya waxa laga badan karaa waa hortag isla markaana waxa ka baniga maamulka magaalada gunta dhulka iska dhiga inuu wacyigeliyo bulshadiisa kabaneedka maamulka magaalada ayaa ah kuwa ay ka go'an tahay ka hortagga xanuunka iyagoo isu abaabulay isla markaana dirsaday qalabka lagu ogaado heerkulka aan caadiga ahayn ee qofka maadaama xanuunka coronavirus uu leeyahay xumad saa'id ah isla mar ahaantaana qofkii looga shakiyo loo diyaariyay meel lagu karantiilo COVID-19 oo ah musiibo ku habsatay caalamka oo dhan ayaan jirin ilaa hadda wax daawo ah oo loo helay gaashaanka kaliya ee lagaga hortagi karana ay tahay in la qaato fariimaha caafimaadka